الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، بشي رمضان أيان قبل ذي كترنا مالمو أيا كلابن وحدي كرتيني جمعة نتاهتي ودميس وهي دليل تهي عمرينا سيدا ودمانيو شالي بيشو دلتي ما انت نوع دمانيسا سند بعد شيء ودماضي كوكلا لوجشرا وقبو وهكذا عمريغاغي وي wax socda maalin kasto ku maraysa qabrigaadu si dhawaanaysa maalin kasto ku maraysa rabbiga la kulankiisa aad si dhawaanaysa maalin kasto ku maraysa adduunyada sagootinaysa yood ka sii socotaa sidaas daraadeed rabbigeen aayado farabadan oo quraanka kamid ah wuxuu noogu tilmaamay habeenkan iyo maalintan isbadbedelaya تعاقب كسمينا ياي آية من آيات الله وإن لو عبر قاتم مدن درس إن لقى قاتم والروح أوفير صدو صي والسعدان هي حال كيس سدوية سيدا يساقوا السعود أظن دريمين أي ما أنت تدبوها إيمان دون تإن لي هذا هو الوارد تهلا آسكي سهل يسوي مات واجب كوحوي إنه مركز زمن كإنا مريا كعبر قادنا oo aynu ka faa'iideysano bishii waa gabagabo maalmo yar baana ka laaba rabbi baan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu khaatimo wanaagsan inoogu khatimo acmaashan inaga aqbalo dhowr qodob oo muhiim ah ayaan doonayaa insha Allah tacaala inaan tilmaamo dardaaramo dhowr midka koobaadi wuxuu yahay maalmahan inoo laabanay bisha 10keedii baynu ku dhex jirnaa tobankaasna nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam dadaal siyaada abu bixin jiray sidaas daraadeed in dadaalka la laban laabo oo khayraadkii iyo taacaadkii la waday la kordhiyo si bisha khatin wanaagsan loo khatimo si wanaagsanna loo afjaro sagootis fiicanna loo sagootiyo nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sida ilaahay ummul mu'miniina Aisha tobankani ba haday soo galaan wuxuu u dadaali jiray suusan u dadaalin waqtiga intiisa kale waxay leedahay markii tobanku soo galo nabigu sallallahu alayhi wasallam shadda mi'zara xaasaskiisu ka fogaan jiray guntigu adkaysan jiray bimaana waxa lagu fasiraa xaasaska waa ka fogaan jiray habeenkiisana waa nooleyn jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam daacada ilaahay buu ku nooleyn jiray kulligii mise intiisa badan ehelkiisana waa toosin jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani caruurta iyo xaaska iyo ehelka iyo waxa guriga la jooga ayuu taacada u kicin jiray say uga qayb qaataan arintaasina waxa ku jirta duca ku jirta oo nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri allah u naxariisto nin intuu tukaday habeenkii kacay waysaystay tukaday kadibna reerkiisa kiciyay oo ay tukatay haday kici weydana biyo ku saydo oo ku kiciya allah u naxariista haweenay habeenkii kacday oo tukatay markay salaadeedii dhameysatana ninkeedii kicisay haduu kici waayeen biyo ku kicisay marka in ehelku ka faa'iideystaan oo xaasaskiisu nabigu kicin jiray sallallahu alayhi wasallam oo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim wuxuu la gali jiray habeenada uu nabigu salaada taraawiixda tujiyay saxaabada tobanka dambe ahay siday tilmaamayaan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenada qaarkood intuu salaada la bilaabay baa waxay yiraahdeen waxaanu ka baqnay inay naga tagto suxuurtu naga tagto yaani suxuurta agteeda buu nabigu gaarsiiyay salawaatu rabbi wa salaam alayhi dhowrkii habeenay la tukaday qaar kamida ama mid kamida rasuulku salawaatu rabbi wa salaam alayhi yaani dadaal ziyaada abu nabigu lahaan jiray ummadusuna u jideynaya nabigu sallallahu alayhi wasallam sababtu wax weeyaan fursadana laga faa'iido waa jaanisaan soo noqonaynin laylatul qadri baa la raadinaya sidaas daraadeed buu nabigu dadaal ziyaada u bixin jiray sallallahu alayhi wasallam markii dadaalka la laban laabo waa qodobka koobaad wuxuu nabigu kordhin jiray sallallahu alayhi wasallam oo wasiyada labaad ah i'tikaafka inuu masaajidka galo oo ku firaaqoobo oo mashaaqishii adduunyada ka dhaxbaxo
وانا السنة النبي نكسر صلوات ربي والسلام عليه واعتكافي جري طبعا كدنبه إلى جيريد وقتمت كدبنا الصحابة دي سي الدمر كي النبي قاعد أحلى صلوات ربي والسلام عليه ويقولون السيدة واعتكافي ومدة كقادتي وجيل عن جيل بالك على أحلي والسنة القرآن كنا تلمامي سنة النبي كنا تلمامي صلى الله عليه وسلم مركا عدي يلي كرتوا مستحب والسنة وعمل قيمة بدن إنه الروح كرح بحو الدنيا ديسا شقديسا صاحره وإلهي تبارك وتعالى كليجي أوجو ساعات كي وقت جيسا إنه سيو قلبي جيسا يشركي سبا إنه مساج كجليو يدنا وحوي وطاعة والنبي صلى الله عليه وسلم سمين شري السجو ليلة القدر الرادني طبعا كهرو اعتكافي سنة ده كمل السجو ليلة القدر الرادني وحلويلي طبعا كم جرتو طبعا كنحو هذا اعتكافي السجو الرادني markuu dhameeyo waxa la yiri 10 kan kuma jirto 10 ka dambu i'tikaafi hadana nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo laylatul qadr raadinay marka damba nabiga waxa loo sheegay sallallahu alayhi wasallam inay 10 ka damba ku jirto 10 ka dambu marka nabiga i'tikaafkiisu waxa wixii inta ka dambeeyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sanadkii ugu dambeeyay nabigu geeriyoon doonana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 20 bari buu i'tikaafay laana warkay geeridu soo dhawaatay وحن النبي قال أمر صلى الله عليه وسلم إنه ددات زيادة بحيه وتكتب من سورة النصر الذي تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا علامات النبي قال السيوي غير ذا ذي بسور دواتوي مع السمية فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا غير ذا النبي قال مركي سور دواتي صلوات ربي وسلام عليه زياد بالله بي sidaas daraadeed inuu acmaasha ziyaadiyo oo tana kamid ahay salawaatu rabbi wa salaam alayhi i'tikaafkiisa inuu ziyaadiyo laakiin waxa loo baahan yahay dadka i'tikaafsan ee ku jira i'tikaafka in ay fahmaan macnaha i'tikaafka i'tikaafku muxuu yahay i'tikaafku waxa weeye shaqadaadii iyo hawlahaagii oo mid adduunyo iyo mid mustaxaba iyo mid fiican kulli ay ku jireen baad soo xidhay waad soo xarootay ilaahay gurigiisaad ku xarootay قلبك iyo jirkaaguba wuxuu u xidhan yahay xiriirka rabbiga tabaaraka wa tacaala